dhibaato badan aan ku socota dalka iyo dadkana waxaan ka mid nahay samata bixiyaasha baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa guddiga saaran doonaa wasiir deeqaan ugu fadhiisan doonaa ayagaan u yeeri doonaa guddoonkeena baarlamaanka waxaan rabnaa wixii qaldan inaan saxno maaragtay war xun oo lagu waa in laga dhigo laakiin wixii gabdhaha Soomaaliyeed iyo ubadkay dhaleen lagu difaaci lahaa inaan la siyaasadaynin qof walba oo nool wuxuu leeyahay malaa'ig ilaahay subxaanahu wa ta'aalana uu xisaabin doona qofka xaqa ka gabada iyo midka xaqa difaaca labadaba ilaahay un baa ka dambeeya qof walba waxa la yiri geerida galbeed laga sheego guntahaaga laga dayaa hooyadii aan habeen dhaweed jingaani ka qaadnay waana la mid waxaan dhalnay ilmo waana in aad ogaataan inaan la siyaasadaynin inaan nooc kale loo dhigin sababahan isugu nimid waa taas waxaan rajaynaynaa culimada Soomaaliyeed hadda kilibyo hore la duubana waa ina dukumentiyaan diyaarin doonaa waa la soo diyaarin doonaa iyagoo doodda iyo baarlamaanka dhinac ka fadhiya oo maaragtay aan wada fadhinaan ka wada doodaynaa culimadeena sharafta badan gabdha wax bartaan leenahay kuwa sharci yaqaanaan leenahay xeelalayaal leenahay aqoon-yahanaan leenahay ayagoo guddoonkeena iyo kokiskeena iyo guddiyada baarlamaanka dhammaan gabdhuhu ay u wada dhayiin ayaa shaqadan qaban doonaa waxaana imaan doonta maalin madala oo xalaal maalin cadaal qashaaye aan lagu doodin iyadoo aan loo jeedin shakhsi wasiir deeqo waa wasiirkeeni waa wasaaraddeeni xaqaan u leenahay inaan difaacno xaqaan u leenahay inaan ayada su'aal weydiino xaqaan u leenahay inaan guddoonkeena baarlamaanka nagu matalaayo sharciga waxa loo marinayo waxay ahayd in wax lagu daro saddex akhris la mariyo wixii ka qaldamana laga saaro ma aha in la doodo ma aha in la dulmiyo qof muslim la yiraahdo waxa tahay gaal taas waan wada dhibaysaa waana midda dhammaanteen aan ka wada gubanayno oo ah in lagu maaragtay meel ku dhac lagu sameeyo qof baarlamaankeena waxaan uga mahadcelinaynaa gabdheena siday noogu yimaadeen iyo sanataradeenaba inaan isugu wada nimaadno madal kale iyo doodo kale waana mahadsantihiin shirkeena wuu noo xiran yahay insha allah waxaan rajaynayaa bahda saxaafadda qof walba oo halkan yimidna wixii aan wacnay ajiibkay ajiibeen inaan uga mahadcelino annagu ilmaha bacda lagu sido ayaan xal u raadinaynaa hooyada diifaysan ee wiilkeedii la kufsaday oo aan dabka shidan karinin ayaan u rabnaa xal xuquuqda lagu difaaci lahaana sharcigaan ku jirtaa sharcigu waa heshiis bulsho ma aha kitaabkeena quraanka waxaan kaloo dalbanaynaa in xamdi kiiskeedii iyo kufsiga wiilka loo geystay labadoodaba ay cadaalad maraan war in cadaalad xamdi kiiskeedii loo helo ma naga go'an tahay ma ogolna in cadaaladda la marsiiyo ilaahay aan ka baryaynaa insha allah waxaan sugaynaa mooshinay baarlamaankuna ka diyaariyeen annagana bulshadii haddaan nahay waxaan dalbanaynaa in xamdi raggi dilatiirka la geeyo wiilka yar kuwa kufsadana ay cadaalada helaan waa mahadsantihiin insha allah boqolkiiba boqol waa idin mahadcelinayaa dhammaanteen ilaahay isku kaaya cafiyo dhammaanteen ilaahay aan nabad yeelo dal xaaladiisu adagtaan ku shaqaynaynaa diinteena yaan lagu dabaqin siyaasadana yaan lagu dabaqin reer hebel kursiga yaan lagu doonin cadaalad darro waa mahadsantihiin